dadka qaxootiga ah sidii maanta beerahooda ugu laaba lahaayeen oo noloshooda dib oo ilaahay hadduu yara looga hagaaji lahay ayaan ka hadalnay waana naga ogolaaday wuxuu yidhi waxay Soomaali maanta u baahan tahay intaas in ka badan weeye marka ugu horeyso waxaan rajaynaynaa uu yiri siday oo wax loo wada sameey karo qof walba tabartiisa taagto ugu tagtaa waxaan rajaynaynaa beeraha ina hoosha iyo kalluumaysiga iyo xoolaha u sheegteen waa taabigelnayna wadayadana waa la dhisayaa intaasaan sheegnay waana naga ogolaaday madaxweynaha anaga si weyn noo karaameeyay waana qaabilaadiisa ka mahad celinayna waa wixii shacabku u doortay ama looga baahnayba asagoo xilkiisa u gutay waxa way bulshadiisa u matan qaabilay laakiin waxa way dad waxa marka la dooranayana af macaan dadka u sheegay dadka ma taqaana albaabada u furayeen markay ma kursi ku fariistaan albaab ka soo xirtay ma wana qaanba marka madaxweynuhu wuxuu ka rumeeyay inuu arkayo bulshada dan yarta inuu arkayo intaas uu ka rumeeyay